بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا كتحان برايga bulshada soo dhawaada aad baa idin soo dhaweynaya dhammaantiin meel kastoo joogtiinba waxaan halkiisi kasii wadaynaa muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan ka duubaynay mashruuca Holaal Hotel Project ee magaalada Kismaayo aan ka dhisaynay si aan ugu faa'iideyno ardayda Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay casting concrete for ground beam waxaan shubi doonaa ground beamka hoose ee dhulka ee isku xirayo dhammaan tiirarka muhiimadda uu leeyahay shubkan waxaa weeye in la helo very strong foundation yacni guriga aasaaskiisa hoose in si fiican loo adkeeyo yacni shubkan wuxuu isku xiri doonaa dhammaan kolomyada sidoo kale waxa uu xoojin doonaa slabka oo culeyskiisa ayuu xambaari doonaa ground slabkan ka hadlayaa shubkaan isticmaali doono waa M20 gradekiisa concrete-ku uu yahay M20 ayaa isticmaali doonaa waxaan filayaa M20 waxa laga wada horay ayaa usoo sharxay waxaan ka rajeynayaa muuqaaladii hore inaad soo daawato dhowr qodob oo muhiima ayaan rabaa halkaan marka inaan ku faahfaahiyo haddii ilaahay idmo birta iyo formwork ayaan ka hadli doonaa kadib concrete-kaas u imaan doonaa birta waxaa loo baahan yahay kow in cover fiican loo sameeyo oo coverku waa distancega u dhaxeeyo birta iyo formwork ugu yaraan 7 senti hadduu yahay aasaaska hoose haddii tiirarka baxayaana 5 ayaa fiican marka anaga hadda 7 ayaan ka baxnay size-ka beamka aan shubi rabnana waxaa weeye waa 40 by 40 dherer ah waxaan ka wadaa 40 balaca iyo 40 joog ah centimeter marka birta waxaan soo xirnay 26 ayaan xiranay birta 7 ayaan labada dhinac ka baxnay waad u jeedaa hadda sidoo coverka uu kaliya u yahay marka coverkaas muhiim waaye qodobka labaad ee aan rabo inaan baraarujiyo ee isleeyahay ardayda Soomaaliyeed waa anfacaya waxaa ka mid ah hook angle-ku waa inuu ahaadaa 45 degree waa in birta markii la soo laabayo laabin la sameynayo lengthigaas la laabayo 50 times d ayaa lagu helaa 50 ayaa lagu dhuftaa diameterka birta oo mm ah marka laabin lengthigaas markii la soo laabayo birta waa in 45 degree la soo qalloofaa waxaan ka hadlayaa birta stirrupka ama staffka wax loo yaqaano ayaan ka hadlayaa hadda meesha anaga waxaan xiraynaa oo ku sii fit gareynaynaa jaranjaradii marka waxaa muhiim ah marka laabin lengthigaas inuu 50 times d uusan ka yarayn sidoo kale angalka inuu yahay hook angalka inuu yahay 45 degree oo ay soo qalloofan tahay birta aysan 90 degree aysan ahayn waxaan filayaa in si fiican loo fahmay qodobka xiga ee aan rabo inaan baraarujiyo waxaa weeye markii laabin length la sameynayo waxaan ka wadaa birta la talaalayo oo ama development length hada kor loo talaalo ama balaca loo talaalo waa in anaga waxaan sameynay waxa loo yaqaano 1 mitir ayaa isdhaafinay kadib ayaan si fiican ugu xirnay siligi qodobka kale ee muhiimka ah ee aan rabo inaan baraarujiyo waxaa weeye siliga in la laabo in laba row laga dhigo si uu si fiican birta uu isugu xiro taasna waa qodob kale oo isleeyahay waa muhiim waxaa kaloo muhiim ah oo aan rabo inaan ka hadlo jointiska waa meesha tiirka isaga imaanayaan afarta beam yani isgoyska ah waa in staffka distancegeeda ama spacingka la yareeyaa haddii waxaa weeye aad ku socotay 30 waa inaad 20 ka sirtaa ama ka sii yar haddii 30 uu ahaa spacingku waxaan ka rabaa haddii spacingku uu 20 ahaa waa inaad ka yareysaa yani 10 ka ayaa camal baa laga dhigaa staffka ayaa lagu badiyaa meesha maadaama tensionkooda uu badan yahay culeyskan transfer uu ka sameynayo waa la ziyaadiyaa waxaa loo yaqaano stirrupiska ama staffka jointiyada waa lagu ziyaadiyaa waxaa kaloo muhiim ah sida hook angle-ka waa kana hook angle-ka waa halkaas birtaas laaban waa 45 degree in ahaataan laga wadaa marka waxaa kaloo muhiim ah oo aan lahaa baraarujisid edgeska geesaha birta markii aad geeska ka soo laabanayso waa in la soo gaanjeeyaa waxaa ka wadaa in si fiican in la soo qalloofaa ee lagu soo xiraa birta kale si yani columnkii uu helo fit ama fixing aad iyo aad u wanaagsan waxaa kaloo qodob asagana aan arkay inay muhiim yahay aan rabo inaan baraarujiyo formwork in si fiican loogu sameeyo waxa loo yaqaano supportka formwork haddii uu adag yahay shubku iska celin karaa laakiin haddii support fiican aan la sameynin
oo si fiican conform waaga aan loo fit garayn shubka waxaa weeye waxaa halis ugu jira inuu dilaaco ama uu waxaa weeye backlin uu sameeyo. waa qodob kula sanaa la baraarujisid. qodobka xigo aan isleeyahay baraarujis waxaa weeye foam waaga in laga ilaaliyo inuu yeesho meelo dulduleelo si shubka uusan oga bixin, meelo dulduleelo inuusan yeelanin si aysan biyaha iyo waxaa weeye sheeg shamiitada aysan u bixin. dhacaankaas hadduu ka baxo shubku waa jay iyo shamiito iyo ciid, marka waa inuusan bixin. halkan hadda waxaad arkaysaa annaga waxaan soo talaalnay sida daarta waa idin tusay jaranjaradii. marka qodob kale muhiimka waxaa weeye in lasii talaalo waxyaabaha ay muhiimka tahay in lasii qabto markay ground beamka la joogo, sida jaranjarada oo kale, plumbing work oo sida tuubooyinkaas hadda noo taagan oo kale, tuubooyinka yani inaad soo talaalato musqulihii muhiim waaye. halka hadda qolkan waxaa weeye safety room. annaga Soomaaliya marka la joogo waa iska ogtihiin dhibaatooyin badan baa iska jiro. waxaa kaloo muhiim ah in lasoo talaalo waxyaabaha birtooda ay sii soconayaan. waxaa ka mid ah jaranjaradii, biyaha, plumbingkii, safety roomkaas oo kale. safety roomka waa qol asaga dhan gebigiisaba wada shub ah, wakaa birihiisa saas u talaalanay. ilaahay baa wax dilo laakiin waynu dadaalaynaa. walow kuntum fi burujin mushayyada aayad baa ahayd, laakiin dadaal uma sameynayna. waa qol asaga dhan ama gebigiisaba wada shub ah, kor iyo hoosba ayaan diyaarinay. si fiicanna waa idin tusi doonaa. hadda meeshan shubkii ayaa socdo, waa ujeeda wakaasaa tuubooyinkii waa noo talaalan yihiin. waa kana marka qolka aan rabo si fiican oo fahamtiin. yani si guud waxaan ku yiri mar walba wax walba oo birtooda ay soconayso waa inaad ka taxadirtaa oo talaashaa. hadda birtan qolkan waa 20 shub ah, dhan walba wuxuu ka noqon doonaa shub. korna islaabka ka korayo, hoosna haddii waxa ogaado dhismaan soo galnay oo hoosdii waxu ka imaadaan, korna waa kana darbiyadii. waxaa darbiyadii waa binaha idiin muuqdo waan sii talaalaynaa insha allahu. haddii qarax imaado ilaahay nooma keeno,